horumarka aynu ku naalanayno aynu ku hameynayno gaarno haddii aynu nahay Somaliland waxa lagama maarmaana inaynu soo jiidano dadka caalamka maalgashada iyo inaynu adkeyno inaynu xoojino ganacsiga aynu leenahay wadamada kale geedi socodka aynu kusoo jiidanayno maalgashadayaasha ganacsigeena aynu ku fidanayno ayaa waxaa shaahinka noogu jirta inaynu shir ku qabsano aynu kusoo bandhigayno ganacsigeena si wadaaga innaka iyo Jarmal magaalada Berlin bisha August 31 shirkanu maaha kii ugu horreeyay shirar hore oo noociisa ayay nagu horreeyay oo aynu ku qabsanay waddanka Ingiriiska shirkaa waxaa loo baahan yahay inaynu kusoo bandhigno fursadaha maalgashi ee waddanka Somaliland ka jira oo aad iyo aad u ballaaran sabab la socotaanba waddankan waa waddan dihin weeye hadday noqoto xagga beeraha xoolaha kalluumaysiga dhinaca beeyada ganacsiga warshadaha kadib waxaa jira fursado maalgashi baa jira oo runtii dihin وأنا أبغى أن نصوب لنا عالم إن شاء الله شركة نعدونا بش كوبيس دكتور بش أوكس كوبيس دكتور برلين وحنا نصوب لنا جدونا فرصة لها كان عسير بالعالم يكر الدول يكتشر ودن كيني كان عسير تفهم مع بشلاش وسوهرتان ودن كيني ونوي ما دام يلفت يروح نقول شركة فرصة كان عسير تدين إنه يقولك ولا تقولنا سيدي أساك عشان لهاين maalgashiga ganacsigana matalaana ay isu wadaagsan lahaayeen waxaynu u baahannahay ma aha oo keliya in caalamku ina maalgashado waxaynu u baahannahay dadka in caalamku wax ka iibino si ugu iibino caalamka wadaweynu caalamka u tagno oo u soo bandhigno waxyaabaha aynu soo saarno waxyaaba badan aynu soo saarno kuwii soddonka bisha August 2016 waxaa ka dhici doonaa biidnillah dalka Jarmalka magaalada Berlin shir caalami ah oo maalgashiga ka shaqeynaya lagu qabanayo Somaliland iyo Germany oo maalgashiga oo fursad run ahaantii qaali ah oo u baahan in sida looga faa'iideysto isla markaana loo diyaar garoobo xukuumad ahaan iyo ganacsato ahaan iyo ciddii kale ee si toos ah ama si dadban shirkaasi u xuseeyo guud ahaan xukuumadda Somaliland gaar ahaana sida arrimaha dibadda iyo ganacsiga waan uga mahadnaqayaa dadaalkaas iyo aragtida togan ee roolka ganacsatadu ay leedahay iibinta fursadaha ganacsiga dalka ka jira ee ay ku eegayaan waan uga mahadnaqayaa waxaan insha Allah taala in la sii kordhiyo wasmid ganacsatada Somaliland waxaa la yaabaa tan waa fursad qaranka Somaliland waa fursad ganacsata ahaana waa fursad ujeedada laga leeyahay shirka iyo nuxurkiisa wasiirada taabtay kaga daba noqon maayo laakiin cidda lala kulmayo ee fursadaha iyo khayraadka Somaliland ka jira la maalgashan karo loo sheegaya waa ganacsato waa ragga dhigiina markii dawladdu xukuumaddu si guud ahaan u tilmaanto fursadaha jira warka hoose iyo detailska iyo dhiirigelinta iyo xiriirka ganacsi iyo cid ay baatin ay la noqonayaan ee dee soo dhiirigelinaysa soo hogaaminaysa fursadaha hoose waxay noqonayaan ganacsato sidaa weli waxaa loo baahan yahay kulley liiskii ilaa imanka suurta gashay in la soo gudbiyo petitionskooda ay diyaarka yihiin waana waan u yeeri doonaa insha allahu tacaala si gaara iyo guudba waxaa loo baahan yahay in loo diyaar garoobo waayo qof waliba wuxuu tagayaa madasha isagoo Somaliland matala oo mas-uulka ah marka qof waliba madasha wuxuu la tagi lahaa isagoo qof waliba category-ga ama aagga uu ka ganacsado ayaa loo baahan yahay inuu ka warrami karo fursadaha ka jira iyo sida loo maalgashan karo
iyo caqabad hadday jiraan sida looga bayri karo iyo muxuu ahaa qofka ka warrami karay warka hoose looga baahan yahay inay ku dadka lagu qanciyo waa ganacsatada. sidaa awadeed ganacsatada wixii fursad loo helo waa inay listation ka diyaarin karaan categorygooda ay sheegi karaan categorygaasaa ka shaqeeya sidii ingiriiska oo ka dhacday berigii fursadaha caynka ee caynkaasa ka jira interest ama profitka iyo benefitka noocaasiya ayaan ka helaa sidaa iyo sidaa haddii la sameeyana waxay waxaasaa laga rajeynaya. sidaa awadeed waa in muxuu ahaa ay ogsoon tihiin ganacsi caalamka siduu macaamilo waa inaga la dhaqana waa imka dee kolley muxuu ahaa degleyntii kartoonkii waa ka gudubnay oo caalamka baynu gudubnay marka sidaa awadeed qofku waa inu dee diyaarsadaa kamali profilkiisa kamaligiisa oo muxuu ahaa ka warramay waa inu sitaa maarata dee business cardkiisii iyo waraawodkiisii dee sida loola xiriiri karaya hadaltooy waayo meesha waxaa lagu kala qaataa xiriir baa kawnkama ayaa kawnkama waxaa kaloo ku jiri karaya fursado dee gaar ahaaneed waxaa laga yaabaa dee qof ganacsada ama badeecad oo isdoonaysa inay seshaan oo facilitation bay taasuna inoo tahay oo si kale aan la soo helin kelida adigoo socda tan waxay kaga wanaagsan tahay kalsooni ganacsade xukuumaddiisii la socda ay wada socdaan qofka ganacsadaha kale wuxuu ku dhiiranayaa inuu niyadiisa u furo fursada waa iyagu sheegay marka waxa iisi noqonaya inuu halka accountka wax xidhiidha ganacsi iyo xisweydaarsi ganacsada dhexdeeda waa saylada jarmalku ama badeecada jarmalku waynu ogsoonnahay tayadeeda iyo kaalin kale ay caalamka kaga jirto waa saylada naga xidhan marka waynaan waxba ka keenin dalkeena loo ogsoonkeena oo imanka bulshada Somaliland imanka waxa lagu bislaatay dadku waxay u baahan yihiin ama waxay fahmeen intuu laba shay oo bilaataya asan bishii misan ama laba bilood inay uga fiican tahay hal shay oo tayal oo dhowr bilood haysta ama sanad haysta inay uga wanaagsan tahay marka uu soo behaviorka ganacsigeena imanka in layna weydiinayo tayal layna weydiinayo oo wixii jamaay hooy u noqon lahaa dadki ay kasoo baxayaan sidaa awadeed waa inaynu dareenka dadkeena la soconaa oo waxaa tayada lay doonayaan inuu raadinaa meelaha ka raadin karaa ay jarmal kow ka yahay waxaan kusoo khatamaya kelmadeena iyo insha allah tacaala dhawaan aan isu iman doono oo tafaasiila warka la kala qaadan doono sida fiisaa loo doonanayo iyo xilliga la tagayana kala qaadan doono in la diyaaro qof waliba horta inta carabka aan mariyey uu diyaarsado oo qofku meesha dee aanu tegin isagoo farabaran oo business cardkiisa iyo kamali profilkiisa iyo brochures ama pamphlets tilmaamaya dee maaragtay slogans iyo halkudhigyo kooban ka hadlaya categoryga businesska uu kaga jiro iyo kambanigiisa wuxuu qabto tilmaamaya oo qofkii uu u dhiibaaday fikrad guud oo summary uu ka heli karayo Nomadism, which brings a very strong independence, the right of self-reliance and silence. The geopolitical position of Somaliland at crossroads between the Arab and African worlds that has unmistakable remarks on trading partner and economic activities. Following the restoration of Somaliland independence in 1991, there has been subsequent establishment of functioning political and administrative organs have been devastated by the prolonged civil war. First of all, let me give you brief background information of our institution. Somaliland Chamber of Commerce, Industry and Agriculture was established 25 October 1993. It is an independent organization working towards promoting and advancing the economic growth of all sectors of business community, the vision of forging new bonds and commercial and investment cooperation between Somaliland and the rest of the world. With a mission of offering guidance and assistance of all types of business. Currently, the Chamber of Commerce has about 4,500 members, and out of this number, about 1,000 are women. The growth in the number of business
registration facilities, the growth of the formal economy, and underlines the increased confidence of existing business and investors as well as in the level of the security and political stability. Fortunately, the business community now, for their traditional entrepreneurial skills, stepped in to fill the vacuum created by the sudden collapse of the brutal Somali regime. runtii inkastoo gabagabadii la aqbali karo qaabka shirku u dhacay haddana waxoogaa turanturooyinoo kacako waa ku soo dhacay dhammaantoodna salka ku hayay fiisayaashii sidii loo heli lahaa waad ogsoontoo dalka jarmalku safaarad kuma laha somalilan somalilan lama aqoonsano baasaboorka somalilan laguma bixi karo ganacsatada somalilanna baasaboorro kala gaara ayay sitaan arrintaas waxay keentay runtii safaaradihii dalalkii inugu dhowaa jarmalku ku lahaa fahamsiintooda sidii ay ganacsadii somalilan ay u siin lahaayeen fiiso mar walba visa processkii oo taagan ayaa timekii shirka la qabtay uu imanayay uu dib u dhacayay dabadeedna taasaa keenaysay in haddana wakhti kale la qabto nasiib wanaag markii dambe waxaa runtii wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ay ku invite garaysay dalka ku-xigeenka safiirka jarmalka ee dalka kenya markii ay timi runtii gabadh bay ahayd si wanaagsan ayay u fahantay mushkiladdii iyo caqabaddii hor taagnayd shirka aadna waa ugu dareynayeen jarmalku inay halkan shir maalgashiga sidii somalilan loo maalgashin lahaa iyo fursadaha maalgashiga somalilan ka jira maxay yihiin inay dadkooda ay ogeysiiyaan oon keligeynahayna guud ahaanba aad mooddo imanka inay ku jahaysan inay dalalka africa wax badan ay ka ogaadaan oo ay ku jahayaan dadkooda inay maalgashadaan sidaa awadeed adugu markii dambe runtii waxyaabihii carqaladihii keenayay inuu dib u dhaco way xallismeen waanay fududeeyeen saddexdii safaaradood ee ay khusaynaysayna muxuu ahaa waa lala hadlay dabeedna si fudud ayaa loo helay somalilan waxay leedahay gool ay doonaysa in xaqiijiso ama ujeeddooyin bay leedahay private sectorka iyo publicuba waa isku ujeeddo annagu halkan waxaan u joognay ma ujeeddadanu xaqiijinayna ganacsatada iyo xukuumadda somalilan ku wada socdaan wax weeyaan inaanu iibinno fursadaha ama ha ahaato badeecad somalilan ay leedahay oo u baahan marketing iyo suuqayn ama ha ahaato fursado maalgashiyo somalilan ka jiraan u baahannahay investors iyo maalgashadayaal aan u baahannahay labada ujeeddo ayaanu doonayna halkan aanu ka xaqiijinno kuna qancinno muxuu ahaa maalgashadayaasha jarmalka iyo ciddii shirka ka soo qayb galaysa sharikadaha dabcan ogsoonta qofka ganacsaday had iyo jeer dawladdu dee si guud bay waxu tilmaantaa laakiin masalan for example imanka sharikadihii prestationka ay jeedinayeen qofka maalgashaday halka jarmalka jooga wuxuu ka dhex akhriyayaa markuu qofkanu kambanigiisa iyo historygiisa iyo golosha iyo guushu gaadhay uu ka warramo waxay qancinaysaa soo dhaweynaysaa ku qanciisa inuu yimaado dalka had iyo jeerna waa lagama maarmaan qofka maalgashadii markuu dal kale tegayo inuu helo baatina xogogaala oo loo kala oo wuxuu la qabsado sidaa awadeed baan ugu dadaalay inay muxuu ahaa sector kasta oo dalka ka jira cid matasha in la helo inkastoo muxuu ahaa meelo muhiima dad loogu talagalay ay runtii habsaameen ama u suurtagal wadeen fiisihii ay helaan anigu waxaan ahay guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan iyagaanan accountable ah waad ogsoon tahayoo waa hay-ad madax bannaan oy ganacsatadu leedahay maamulka joogana iyagaa doorta oo dawladdu wax faragelinay ku leedahay ma jirto waxaanan u taaganahay dantooda iyo wixii maslaxaddooda wixii fursadee ama anagu aanu soo ogaano ama dawladdu ha nagu wargeliso si siman baa loogu gudbiyaa laba siyoodna waan wargelintu way u dhacdaa kolley mimbarisku dee canaawiintoodaanu haynaa marka si gaargaaroo toosa oo qoraalaah invitationa arrinta caynkaasaa jirtay ma danaynaysa
iyo xilligaa kusoo jawaaba kamina walba la geeya xafiiskiisa warbaahintana waan uga sheegnay farsacankaasi cid doonaysaa danaynaysan ka qayb gashay in xafiiska ay timaado si loogu sheego waxyaabaha looga baahan yahay marka ma jirto cid aanu ka reebnay iyo cid aanu si gaar ah soo xulnay toona ma jiraan time baa la siiya bixiya marka timeka haddii hawsha aanan anagu wadan haddii mesela arrimaha qaarkood dee annaga ownarkiioo qabanqaabina oo wakhtiga iyo xilliga ku habboon annagaa goyna waxyaabaha qaarna dee dowladda ama sharikado kaloo dabadda cid kalaa la timaada marka qorshaha ay dee noola yimaadaan baanu raacnaa marka xilli baa la bixiyaa xilligaa ciddii ka soo jawaabta ee muxuu ahaa applicationkeeda keenta inay dareynaysa inay ka qayb gashaa human informationka iyo waxyaa looga baahan yahay inuu sameeyo si arrintaas ugu suurto gashaa aan u gudbinaa marka saasay ku timaadaa laakiin cid gaaroo dhabarka la taabta ma jirto waxaan filayaa waa shirkii labaad ee noociisa ah ee Soomaaliland u qabsoomay kii hore waxaa 2014kii London UK ayuu ka dhacay madaxweynaha hogaaminayay waftigii Soomaaliland ujeedadiisuna intan u bayhay qabanqaabadiisu runtii way ka ballaarnayd waana ka waafsanay muxuu ahaa kana waa kii labaad isku ujeedaan in anagu aanu ka lahayn taa laga lahaa ka dhacday UK ayuunbaa kana laga lahaa runtii dibudhicii markii aan weydiinay organizerka waanu arkayaa inay muxuu ahaa runtii sharikadihii iyo dadkii muxuu ahaa ay ka soo qayb galaan ee markii hore danaynayay shirka liiskooda aan haynin in badanoo ka mid inaanay iman runtii waxaa muuqatay markii laba jeer dhilay dhacay laga yaabo qaarkood iyagoo buukii hoteelkii wax walba samaystay oo ku talagalay shirkii dee markii ugu dambaysa loo sheegay inaanay arrintaas shirki baaqday waxaa laga yaabaa in badanoo ka mid muxuu ahaa maalgashadayaashii ama sharikadii jarmalka ah inay kalsoonidii ay ka lunto dabeedna dubadhaco aanay keentay inay maaragtay ishahada maantana dhici maayo taasaa keentay markaa sharikado badan oo iman lahaa inay baaqdaan laakiin guud ahaan sida idinkuba dee arkayseen messagekii aanu sidnay waxaan isleeyahay wuu baxo si waafiya ayuu u baxay inkastoo sectoriska qaar aad u muhiim ahaa dadkii matalayay ay naga habsaameen sida kalluunka oo kale oo arkayseenoo laba sharikadoodoo loo soo xulay inay matalaan labadiba way baaqdeen ujeeddo weliba imika aanay ii soo sheegin ayay ku baaqday magacayga waxaa la yidhaha ubax maxamed ducaale waxaan ahay ownarka deegaan company oo ka socda Somaliland Hargeysa deegaan wuxuu fuliyaa serviceyo badan oo ay hoteelada iyo ay ka mid yihiin training ay hablaha siiyaan lacag yar oo microfinance ay dumarka suuqa fadhiista siiyaan deegaan maanta wuxuu ka soo qayb galay shir lagu qabanayo Berlin dhammaan waxaan maanta ku faraxsanahay inaan matalo dumarka Somaliland ee businesska ah ee uga soo qayb galay shirkan anoo ku faraxsan inaan dad badan oo wajiyadoodu cusub yihiin aanu halkan isku baranno kambaniyo investment ah dad kale oo Soomaaliya shirkan runtii si fiican baan aragti fiican baan u arkaa waxaana ay Soomaaliland ka faa'iideysaa dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca dhaqaalaha way ka faa'iideysaa dhinaca siyaasadda markay ugu liidato waxa weeye horta marka hore warqadda laynagu soo codsamay Somaliland German day baa ku qoran magaca Somaliland si kale buu ugu qoran Somaliland German marka waxa weeye waxa weeye waa ictiraaf dadban iyadoo oran kartaa marka labaad waxa weeye meedihii ay gelaysaa shirku gelayaa muddada shirku socdaa ama muddada laga hadlaayo magaca Somaliland dad badan oo aan hore u maqalba maqlaya oo ay dhagooda ku soo dhacaysaa marka dhinaca siyaasiyan faa'iidooyin buu halka ka leeyahay dhinaca dhaqaalaha waxa weeyaan dad inay wax kala faa'iidno ay doonayaan ama sunnimi dal weyn oo dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan la kamid ah weyn ayaa shirkay noo qabtay marka mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inuu miro dalkeena insha Allah waxa uu daaran yahay rugtiga ganacsiga warshadaha iyo beeraha Somaliland waxay marti gelisay shir maalgashi oo ka dhici doona magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland bisha 14keeda iyo 15keeda labada maalmood shirka
waxaanu ugu magac darnay maalgashiga taabagalka ah iyo xidhiirka dhaqaale ee dunida wanaagsan. shirka waxaanu ka gol leenahay inay isugu yimaadaan dowlado, hogaamiyeyaasha ururada ganacsatada iyo daneeyayaasha maalgashiga caalamiga ah, iyo in la dhiso xidhiir ganacsi oo joogtaysan si kor loogu qaado koritaanka dhaqaale ee gobolka markaan leeyahay waxa weeye geeska Africa. shirka waxaa diiradda lagu saarayaa mawduucyo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa xidhiir ganacsi oo xoogan oo u dhexeeya Jamhuuriyadda Somaliland, geeska Africa iyo ganacsatada caalamiga ah. waxaa sidoo kale shirku isku xidhayaa qaybaha ganacsiga ee kala duwan si loo gaadho midho dhal dhaqaale oo waara. shirka waxaa lagu soo bandhigayaa fursado runtii lagaga faa'iideysanayo caqabadaha iyo ganacsiga ka soo baxa iyo fursadaha labada jaarisba si loogaga faa'iideysto oo la isaga yimaado. shirka waxaa si gaar ah loogu soo bandhigayaa laguna falanqeyn doonaa qaybaha ganacsiga, gaar ahaan beeraha, kalluumaysiga, xoolaha, tamarta iyo kaabayaashooda. shirka waxaa kasoo qeyb geli doona rugaha ganacsiga ee Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia, Pan Africa iyo dowladaha deegaanka iyo dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ee Jigjiga caasimadeedu tahay, iyo ganacsato ka socota dalal badan oo dunida, gaar ahaan Holland, Kenya, oo UK, Denmark, Uganda iyo ganacsatada shakhsiyaadka ah ee ka kala socda dhammaantoodii ka kala yimi geeska Africa. waxaa kaloo iyaguna ku jira Soomaalidii qurbaha ee loo yaqaan Somali diaspora oo iyaguna runtii si miisaan leh uga soo qayb galay. waxaanu ku rajo weynahay inuu shirkan noqdo mid midho dhal ah oo keena xidhiir ganacsi oo waara Somaliland, gobolka iyo adduunkaba. taasna anigaa idin idhi oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Somaliland. gabagabadii runtii waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa oo hawsha tan aanay la-aanteed noo suurta gasheen Jamhuuriyadda Dowladda Somaliland, gaar ahaan wasaaradda maalgashiga iyo ganacsiga, wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda promoting inclusive markets la yidhaahdo in Somaliland iyo Soomaaliyaba degan af Soomaalina ku noqonaysa mashruuca horumarinta ee suuqyada loona yaqaano marka lasoo gaabiyo BIMS. hay-addaasoo ay maalgeliyeen hay-adaha horumarinta caalamiga ee dowladda UK oo loo yaqaan DFID iyo dowladda Denmark ee Danida ayaa iyaguna hay-addaasi maalgeliyey oo muxuu ahaa hawshan runtii annagana noo suurtageliyey isu soo waca iyo isu keenista. waxaan mar labaad ugu mahadnaqayaa iyagana dhammaan ciddii aanu casuulnay naga aqbashay ee kasoo qayb gashay oo joogta. waxaanu rajeynaynaa shirka Britain inay kasoo qayb gashaan. waxaana muhiimadda guud aan idin taabsiinayaa inay tahay baac-mushtarku sidiisaba waa war iyo is-aqoonsi. dadkii isu baahnaa ay daruhu ka dhexeeyeen wixii isgaranayay wixii aan isgaranaynba waanu isu keennay si looga faa'iideysto ganacsiga geeska iyo ka jamhuuriyaddubana hore u maro. waana mahadsan. barnaamijkan benefitkan aanu qabanqaabinay aanu idinku soo dhaweynay ee aanu ugu magac darnay maalgashiga taabagalka ah iyo xidhiirka dhaqaale ee dunida wanaagsan. runtii waa barnaamij ay naga gacan siiyeen BIMS iyo ciddii kale ee investmentka siinaysay. waana mashruuc aynu ugu talagalay in la isku barto business to business oo laga wada hadlo wixii loo. ujeedadan shirkan aynu isugu nimay ganacsi runtii wuxuu ahaa shir aad u muhiima oo muddo la qabanqaabinayay oo ujeedadiisu ay tahay sidii dadkeena ganacsatada iyo dadka ajanabiga ee ganacsatada ay isugu xidhmi lahaayeen, ay isu weydaarsan lahaayeen xog, ay isu weydaarsan lahaayeen runtii waxqabad buura ah. waayo maanta waxaynu u baahnay nabadgelyadii waan haynaa waddankeenu, waxaynu haynaa maxay toy jaanisyo fara badan oo u baahan waddankeena laga maalgashado. marka si ay u soo jiidano ummadda maxay toy
waxaan u baahanay inaynu ku xidhanno dunida